Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qalbiga meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan waxaan idin leenahay waqtiga ha idin wacnaado waa bahdii arday kaab halkaad nagala daawanaysaan waa arday kaab maanta halkan waxaan iskugu nimid haddii Allah subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo inaan idinla wadaagno ujeedada janaalkaani loo sameeyey iyo waxyaabaha aynu soo wadno iyo maaragtay mustaqbalka meesha aan hiigsanayna ayaan rabnaa inaan idinla wadaagno magacaygu haddii aan idiin raaciyo waa Nuur Maxamed Kamas waxaa garabkayga midig fadhiyo walaalkay Maxamed Deeq Cali Xasan Maxamed Deeq Alfa Maxamed Deeq Sudu waa dhawahay Nuur masha Allah dhammaan daawadayaasha fiidiyogan daawan doono arday kaab waxaa leenahay soo dhawaada meel kasta aad joogteen dal iyo dibadba janaalkan wuxuu u taagan yahay dhalinyarada Soomaaliyeedba ardayda si fiican waa janaal ku socda dhanka waxbarashada na garab siin doona ardayda Soomaaliyeed masha Allah haddii aan ku hormaro dabcan sidoo Maxamed Deeq idin sheegay ardayda Soomaaliyeed ayaan maaragtay ujeedada aan u sameynay waa idinka madaxiina ardayda Soomaaliyeed haddii aad joogtiin dalka iyo haddii aad joogtiin dibadda muhiimadda uu leeyahay ardayda joogto dibadaha kale haddii aan ku hormaro janaalkan waxaan rabnaa oo xoog aan saari doonaa inaan ardaydii waraysiga aan ka soo duubno goobahooda waxbarashada aan ugu tagno dabcan anagoo waqti la soo qaadan doono sida taabuurka oo kale waxaan deeqa la soo duubi doono iyo macallimiinta xataa inaan la kulano imaamulada aan ka soo duubno barnaamijka taariikhda iskuulka taariikhdiisa marka ardayda dibadda joogto wuxuu maaragtay jaanis u yahay iskuulkay ka soo bixin iyo ka soo qalin jibeen nasiibka haddii uu u saacido oo aynu tagno inay dib u daawan doonaan quruxdiisii siday ku ogaayeen waxaa isbedelay markuu sameeyey si fiican haddii aad idinkana maaragtay lambaradeenna waa idinla wadaagi doonaa aad nala soo xiriirtaanana iskuul alaale iskuulka naga soo codsataano taga aadna dhahdaano insha Allah waan tagi doonaa sida aad waxaan siin doonaa ardayda dibadaha joogo oo dalka maaragtay ka tagay waxna ku bartay dalka inaan codsigooda u tixgelino iskuulaadka ay rabaana ugu soo duubno taabuurada iyo ila nin walbaba dalka wuxuu uga baxay dugsi sare si fiican haddii aqoonta waa dadaasho laho jaamacad laga yaabo heerka koowaad mise heerka labaad inuu dibadda waa si fiican marka xilligan la joogo ardayda Soomaaliyeed ma haystaan janal mise TV oo qaas ah oo ka hadlaya ardayda biso waxay qabtaan faa'iidada ardayda iyo dadaalka ardayda bixiyo marka waxa leenahay soo dhawaada meel walba dal iyo dibad ka joogtaan waa bahdii arday kaab oo idin leh soo dhawaada haddana 1,000 jeer mar saddexaad magacaygu waa Maxamed Cali Xasan Maxamed Deeq Alfa sidoo kale Nuur Maxamed Kamas aan idin la hadlayo oo kiyaalaha weyn wato garkana deestay sida maaragtay xal lahayn waayahay intaas oo iska kaftan waxaan deeqadii aan ku sii socono kale waxyaabaha aan qaban doono kale waxa ka mid noqonayo Nuuro horta kanaalkan ama janaalkan magaciisa waa arday kaab si fiican magaca uu wataa magac weyn arday iyo kaab laba magac la isku keeno arday waaba taqaanaa waa tilmiid mise students si fiican ardayga wax baranay si fiican kaabna waa gacan siin kor u qaadid bilid si fiican macna ardayga in la kaabo oo heerku taagan yahay heer ka duwan la geersiyo anaga macallin ma nihin wax kuma bareeno oo iskuulna ku tagna sabuurada waxaan kugu dhigan walow ay jiraan arday macallimiin aan u nahay oo u dhigno wax soo barnay jiraan oo ilaa haddana wax barno marka waxaan jeclaysan ardayda kaleetana inaan dhiirigelin u sameeyno tusaale iskuulkaaga hebel ay imaanay barnaamij waxa kala qayb galnay taabuur mise tartan oo rabtay iskuulkaaga bis awal ku koobnay si fiican oo anaga hadaa imaano oo qalabkeena wadano iskuulkii niitabino oo u gudbino dunida kale iskuulkaaga oo laga daawado ka waran ama arday hore ka baxday mise dad madax ah ay ka baxeen ee dhahan iskuulkayga maanta waxa waay taabuurkii ilmihii fasalka xilliga mari jiray sideedad haddii adin duqoodina YouTube-kan arday kaab dib ugu daawan kartaa adigoo yar oo si fiican uniform jaalo wato dib iska daawanaya adoo jaamacad dhameysay oo aqoon-yahan masha Allah marka wax qabadkiisa intaas ma lagu soo koobi karo waa barnaamijyada waxa kamid ah in taabuurada iskuulada kala qayb galno iskuul goonina ma fiirin doono waa kii la soo xiriiro ka anaga aan raadino anaga iskuulaadka dhan inaan wada marno waa rajaynaynaa in nafta iyo waqtiga maaragtay noo saamaxo inkastoo shaqooyinaan iskaga mashquulsanahay laakiin intii karaamkeena waa dadaalina wixii nala soo xiriirina codsigooda waa tixgelin doonaa wixii hadda anaga maaragtay aan ka bilaabi doonana sida maaragtay iskuulaadkii
nasiib ay u kala yeeshaan horta ugu kala tagi doonaa waxa u sameynayna marka aragnay diiwaan gelin iskuul kastaba maalin hebel la imaw maalinta loo imaanaya iyo waqtiga iyo waxa dhan maamulka kala xiriirina liisa u sameynayna isbuucan waxa u soconaa iskuul hebel waxa ku soo qoraynaa meelihiina beejidkeena qaaska noo ah facebookyadeenna qaaska si oo hadhooti loo dhaho iskuulkaana maalin hebel leh ayaa lagu tashanay kan kale anaga oo ka hormarno haddii adinka aana soo codsanaysin haddii inta naga dhexaysane oo anaga inta dadaali karno isku dhexwadayna in adinkana soo codsatiin inaan aniga idiin imaano marka ma ahan taabuur kaliya inaan igala soo qayb gali karno xalfadaha meesha u socda tiimka oo macnaha tiimam nagu xiranaa jiro oo kaamiramanni ah oo xalfadaha idin duubi doono idin xiriirin doono wariyaal iskugu jiro oo meel kasta kasoo bariisayay oo fahamsan jawiga dalka anaga ahaantiin ardaykaab barnaamijka taabuuriga barnaamijka qaaska oo tartamada kale iyo taariikhda iskuulada wax qarashku ma rabno iyo waxaa intaas ka sii baxsan dhiirigelin iyo warbixino iyo waxa duruus kale oo idin la wadaagi doono wax lacagna ma insha Allah macna anaga arday wax barnaa anaga waxana la soo baray anagana waxaan rabnaa inta iyo afkeena intaan nool laha socono inaan socono aadowga marka insha Allah haddii xafladahaas duubitaankooda iyo xiriirintooda ay noqotaan inaan idinka saacidno ayaan maragtay rajaynaynaa mid kale ardayda maxaan deeqo sanad dugsiyeedka kale markuu dhamaado ardayda ay qalin jibinayso waa inay sawir xasuus ay galaan Soomaa arintaas ayagana waa ka saacidin doonaa oo ayagana team ayaan ku xiri doonaa team oo cameraman oo anaga nagu xiran dadkaas idinku soo xiri doonaa si idinkoo jamaca goobta u socotiin ood ku heshiisan inaan idin raacno ama idin raacaano oo howlihiina idinkugu soo qabtaan marka insha Allah ardayda way nala soo xiriiri karaan macallimiintana way nala soo xiriiri karaan lambaradiina nagala soo xiriiri lahayn shaashada ay idinkaga muuqan doontaa marka insha Allah wax kala hortiina maanin janaalkay arday kaab shaqadiisii way bilaabanaysaa shaqooyinka uu qabanayana waa shaqooyinkaas طبعا ان شاء الله haddana macnaa janaalka hadduu barnaamijyadan tooska bilaabay markii iskoolada dib loo furay laakiin muddo dhowr bil uu shaqeynaa waqti la asaasay aan ku dib ugu laabano waa haddii aan qaldanay 3 Maarso 2020 ma haddana waxa la joogaa maantana waa ujeedaa waa dareemi kartaa bishii Agoosto sideedada dhamaatay 9aad la sii gala marka intaas gaabkaas yarna waxa keenay anaga ma ahan caalamka dhan waxa haysto waa dareemi kartaan goobi waxbarashada waa la fasaxay wax dhaqdhaqaaqay ma aysan jirin isku socodkii dhanaa hakad gale marka naga raali ahaada soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ugu dambeyn waxaan deeqo waxaan leenahay horta taageerayaasha hore noola joogo ardaykaab asagoo shaqadiisa iska tahay shaqo xoogaa yar oo gaab ku jirto oo bilaab ah oo cudurkan coronavirus dartiisa gaab u gal dadkaas waxaan leenahay horta waa mahadsantihiin inta subscribe-ka noo saartay oo noo sameysay dhiirigelintana siisay si fiican oo ogaaday ardaykaab inuu waxay ogaadeen oo yahay magacaas xataa nagu soo raacay si fiican inta cusub iyo iskuuladaan tagi doona iyo qof kastoo nagu soo biiri doona waxaan rajaynaynaa hal sano ma dhamis 6 bil mise 3 bil isbedel oo janalka in la dareemaa laga dadkana daawan doona subscribe macnaa arday ka badil loo intaas aba qiimeen ku ay maniina anaga fani iyo music iyo ma sax waa si fiican ma ardayda Soomaaliyeed ma yara dalii dibad dalka inta joogto kaliya yara ma dibad maxaan ka doonaynaa dibadda xataa kuwii iskuulada ka baxay dalka oo dibadda ku aaday faa'iido badato maadaama ayagana muuqaalada iyo xasuus dib ay u gali doonaan wax badan ka dambeeyay ayagana tarkooda ay dareemaan muuqaalkan uu soo gaari doonaa qof walba Soomaaliya soo gaaro muuqaalkan laakiin gacantaada arday ma tahay subscribe ka saar hadda arday ahaan dhib ma lahan iska daay hadda arday ahaan macnaa anaga barnaamijka ardayga ugu talagalnay arday waxa jira oo qof arday ahaan oo jecel waxbarashada waxaan jecel fursad u weeyaa jira Soomaaliya daanis waay anaga janalkeena haduu ku xirnaan laga yaabay dhiirigelin oo helo waxbarashada dib ugu laabto si fiican xitaa maalmaha revisionka muraajacooyinka ay jiraan iskuulaadka waxaan isku dayaynaa inaan duubno oo aan soo gelino barta YouTube-ka wax kasto waxbarasho ku saabsan xataa inaan booqanaa rabnaa marka yarka oo macalinka oo xalfad loo sameeyo ma jiro macalin
sagootin oo kale macallimiinta hadii lagu siiyo mise maya ardayda qalin jibisa tusaale xalfada form 4 ee dhimantahay waxa jirta macalinka inoo macallimiinta ugu fiican iskuul mise ugu jecelin ardayda adiga waxa soo baratay markii xalfada form 4 inta la gaarin waxa la siin jiray dhar barafuuno si macallinkana ka jeclaan camal macallinka ugu jecelin oo kale iyo macallinka fasalkaas maamulka ka ah oo xil saaran oo kale formasterka oo kale galaaska markuu qalin jibinayo kale macallinka ay hoos imaadaan markay baxayaan oo kale si qurux badan ay ugu tagaan xafladaas hadii dhiganayaan xataa anaga ay noo wacaan waa joognaa anigu waxa waa socodka diyaar u nahay iskool naga wac waxa noo wacaysa laakiin ha ahaadaan wax ardaydaas aan ka madax banaanin arday xaflad dhiganayo arday maaragtay san dugsiyada la furaayo arday maaragtay taabuur galaayo intii oo dhanba waliba maxaan deeqo waxaan kaga faa'iideysanaa halkan in baahida gaarka ah ardayda qabo eegana si qaas aan warbixin ugu diyaarin doono ardayda macnaha oo baahiyaha gaarka ah oo jeclina xabta arday waxa iskuulku waxa macquul ah in ardayda baahiyaha gaar ah qabo ay ka mid yihiin wax baranayaan dad naafaa jiri karo dad lixda laxaad qayb dadkaas eegana indhaha caalamkan tusi doona insha Allah eegana halkaan maaragtay taariikhdooda iyo warbixintooda aan ku soo gudbin doono insha Allah ka muuqaalkan intaas aan ugu talagalnay aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalka noo sii sheeg gareeya oo channelkana subscribe ha kiiloobina like-tina sidoo kale aad u mahadsantihiin waxa inoo balanaa waxaan rajeynaynaa sanadkan hadda inta bil ka dhiman channelkan oo 4 bil isbedel fiican oo horumar anaga waa dadaaleyna ilaa ay ku dhawaad intaas oo iskuul 4 bil waxa la rabaa hadaa 100 gaarin inaan ku dhawaano adinku waxaan laga rabaa in sida u dadaaleen garab ugu siisin ani maanta in subscribe ii saartid dib ma kugu heesaadi si fiican ina macalinkan subscribe u saartid dib badan horto subscribe inaad wax saarto iyo inaad baxdo iskuul tagto barnaamij ka soo diyaarisaa dib badan waxa go'aan ku xiranta qof subscribe laga yaabo inuu dib ay ku tahay adiga laakiin adu arday yahay oo qofka fiirsa adu xataa fasalka saddexaad arday meel wax ka helayo jaahilku karoonya ma ho si fiican gacay waxa laga yaabaa inuu ku xasdin oo xooga fahamsan diiniyo waan ka dhisan yahay kana waa dhisan yahay maadiin qof wax bartay qof aan waxbarna isku mid maahan waxbarashada eedaa wala dhahay waxay ku tustaa wadada qaldan iyo wadada sax ay ku kala tuseen marka anaga ardaydii meeshii wax ka helayeen dabcan inay xaqri doonaan uma maleynayna bal siday muuqaalka idin soo gaaray sida channelka u aragtaan falcelintiina aan aragno insha Allah falcelintiina aan soo weydii kartaa iskuulka dhigataad soo sheegaysa from hebel school hebel ka socda saan iskuul kasta Soomaaliya hadda waa tirinina hadda dhahno magaalada ku dhalan oo ku kornay laakiin hadda waa tirinina qaar aqoonina laga yaabaa inuu intii waaweynka aan aqaano ku hormarina xataa iskuulka dalabkiisa soo hormaraa iskuulka dhigato magacaagii waa wax arkeena iyo galaaska aad tahay iyo waqtiga aad jeclaan lahayd inaan iskuulkaaga imaano taabuurka adaaba nasixi kartid xilligaas taabuura leena maanta waxaan noo soo socdo wiilashii ardikaab oo maanta raba iskuulka inay nagala qayb galaan hadda xataa anaga maamulka aqoon u lehen asan ugu xirkan ayaga ugu xirkan ardada ardikaab bacanay waxaan rabnaa in noola ogolaado dadaan soo socdo markaan barnaamijka ku casuunay bal maamul noo ogolaado waa dhigi kartid si fiican anagana waa ka soo qayb galanaa insha Allah waxaan u taaganahay waa in adigu ku waayeelin insha Allah waxaan leenahay marka halkani waa arday kaab muqdisho Soomaaliya ninkan waa Nuur Maxamed Kamas aniga waa Maxamed Ali Xasan waa barasho wanaagsan waxaan leenahay gacmo wada jir bay wax ka gooyaan anaga oo dadaalno iyo adinkoona daawado oo subscribe na siiyo waxaas dhan waxa ka muhiimsan in aan dalkeena iyo dadkeena anfacno masha Allah aad u mahadsantiin muuqaalkan intaasaan ku soo gabagabeynaa tan intaan muuqaalkiisa xiga aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaana